بسم الله الرحمن الرحيم maalmaha kamida ayaa saxaabiga jaliilka ah ee Abi Dharr al-Ghafari ayaa wuxuu u yimid rasuulka kaleey salaatu wasalaam markaasuu wuxuu ku dhahay yaa rasuulallah ilaahay rasuulkiisiyow ala tastacmilni miyaadan maaragtaa madax iga dhigayn oo madaxtinimada iyo xilalka aad qaybinayso miyaadan ii dhiibayn ayuu rasuulka ku dhahay calayhi salaatu wasalaam Abi Dharr al-Ghafari rasuulka markaa wuxuu ku dhahay Abi Dharr asigoo la hadlaya yaa Aba Dharr inama yani imru'u dha'iif adiga waxa tahay qof dha'iif ah ayaa tahay wa inaha amaana yani xilka iyo mas'uuliyaduna وأمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة maalinta qiyaamana waa hoog iyo baaq ilaa qof ku qaada xaqeeda oo waajibkii ay lahayd maaragta ka soo baxa mooyaane qof kale dhibaato badan ayuu kala kulmayaa marka loo dhiibo mas'uuliyadda uuna ka soo bixi waayo meesha waxaa aad iyo aad nooga cad qof kasta ee xil ama jago hogaamineed loo dhiibayo waa in uu jagadaas u leeyahay awood iyo karti waa inuu leeyahay waa in uu ka bixi karo waa in shaqada uu qaban karo haddii kale dhibaato weyn ayaa runtii ka soo raacaysa oo aan caadi ahayn qofkan awood ma u leeyahay awood maxaa loola jeedaa awoodda shaqada waa inuu qofku qaban karo ayaa loola jeedaa awooduna way kala macno duwan tahay way ka duwan tahay marka laga hadlaayo dagaal iyo istiraatiijiyad iyo xeelad marka laga hadlaayo maaragta awoodda waxaa loola jeedaa qofku fanka dagaalka inuu yaqaano marka xukunka laga hadlaayana waxaa loola jeedaa caqliga iyo maskaxda iyo xikmadda iyo inuu waxaan awood u leeyahay qofka inuu shaqada socodsiin karo ayaa loola jeedaa haddii ay tahay shaqadu shaqo u baahan maaragta xoog jir u baahan waa inuu yahay qofku qof xoog leh idan awooddu waxay gashaa meel kasta ay ku habboon tahay ayaa loola jeedaa inuu qofku awood u leeyahay waa ka nabiyullaahi Muusa calayhi salaatu wasalaam gabadhii Shucayb markay aragto maxay ku dhahdaa aabaheed yaa abati istajirhu inna khayra man istajarta alqawiy alamiin yani aabaheeyow noo kirey nabi Muuse waa qof xoog leh oo amiin ah amaano leh laakiin xoog معناها قاضي كره وحقبان كره إذا حلك هي مسؤوليته وحقوقها هي قف كان إنه أود وليه هي كرتين وليه كرتونه معناها هذا حلول جيدا قف كان شقدي اللود دري قاب كي اللود ربي إنه وحوسمه وقري كريا هدي اللود باهية إنه وحقره وحمقري كريا هدي وياه قف وتجرافه وحدوبة يا أنت وحدوبة وحروح بدل ما صار كره كرتين اللي شيء جاي وأنت قف كستوى إن شقد اللود دري أي سيتها وقبان كره سيدا درت هذا هو جامنته هي اللي شيبكو إسكم معها وحقف كست إسكم سماين كره لكن وإن قف كالله marka laga hadlaayo xilka iyo mas'uuliyadda loo dhiibayo sidaas ayuu rasuulku ugu xili jiray calayhi salaatu wasalaam dad waxaa jira aad iyo aad islaamkooda iyagoo waqti dhow islaamka ku soo biira haddana rasuulku uu hormarin jiray oo xilal iyo mas'uuliyad u dhiibi jiray dadkaas waxaa ugu horeeyay sayidina Khalid bin Walid iyo Amr bin Aas yani Khalid bin Walid ma uusan ahayn caalim diinta ma uusan ahayn halka Abu Dharr al-Ghafari oo caalim diinta ahay sidaas darteed rasuulku wuxuu hormarin jiray Khalid ayaa markasta xilalka iyo mas'uuliyadda gaar ahaan kuwa militariga ayaa loo dhiibi jiray sababtoo ah waa ku habboon yahay fid ayuu ku yahay idan hogaamintu waxay u baahan tahay qofku inuu waxa yaqaano sidaas oo kale Amr bin Aas dadka la hormarin jiray ayuu kamid ahay sababtoo ah hogaamiye ayuu ahay ku habboonay ilaa sayidina Umar bin Khadaab radiyallahu anhu maalmaha kamid uu yiraahdo yani ma yanbaqi ala Amr bin Aas an yamshi ala al-ard illa amiran yani Amr bin Aas ma ku habboono dhulka dushiisa inuu socdo illa asoo amiir mooyaan macnaheedu waxa loo jeedaa wuxuu ahay hogaamiye aan caadi ahayn oo wax loo dhiibi karo sidaas darteed waa in loo xulo xilka iyo mas'uuliyadka waa in qofka loo xulaa in la iskaga dhiibo maaha annaga hadda dalkayna yani Soomaaliya marka la fiiriyo xilka markii lagu leeyahay loolama jeedo kaliya siyaasad loolama jeedo siyaasadda dhaqaalaha waxbarashada qoyska meel kasto qof loo dhiibayo oo qofkaas ay hogaamin tahay waxa laga rabaa hogaamintaas inay noqoto qofka inuu ku habboon yahay la sababta islaamku wuxuu amraya saddex qofood haddii isku yimaadaan waa inuu qof hogaamiye u noqdo qofkaas hogaamiyaha noqonaya waa inuu yahay qofkii ku habboonay mas'uuliyaddaas iyo xilkaas loo dhiibayo ku habboonay waa inuu yahay sidaas darteeda annaga waxaan u baahannahay haddii aan nahay Soomaali meel kasto ee mas'uuliyad loo dhiibayo ama siyaasadda ha noqoto ama waxbarashada ama dhaqanka ama ganacsatada meel kasta ha noqotee qofka loo dhiibayo qof ku habboon oo fit ah inuu noqdo haddii kale wuu kharimayaa wayna kharimaysaa annaga dhibaatadana haysta mid kamid ah waxa waaye in aanan qofka iyo xilka la iskugu waxaynayn ama la isku fiirinayn oo qofka ma ku habboon yahay mase kuma habboona runtii aan aad loo aranayn laakiin just bal u dhiib la iska leeyahay iyadoo aan ahayn gaar ahaan xilalka aadka khatarta u ah oo aan caadi ahayn sababtoo mas'uuliyaddu waxay leedahay waa khatar waxa laga yaabaa saxiix yar oo adiga aad samaysay inay يعني boqolaal kun ay ku halaagsamaan dhibaato ku dhacdo sidaas darteeda haddaadan awoodeeda lahayn kartideeda lahayn qofka in loo dhiibo sax ma aha gebi ahaanba waxaan ku soo khatimayaa qiso kale oo laga wariyay imaamkii weynaay Ahmed bin Hanbal yani ahad a'immat al-arba'a afarti imaam mid kamid oo ahay Ahmed bin Hanbal ayaa waxa la weydiiyay yani sayidina Ahmed war imaamu waxaad ka warantaa haddii muslimiintu ay maaragtaa
ay galayaan ma aragta dagaal galayaan dagaalka markay galayaan laba qafood kaliya la haayo labada qafood oo kala ah qof yani ma aragta dagaalka si fiican u yaqaana oo taatikada dagaalka yaqaana laakiin faajir faasiq ah oo qof taqiya aan ahayn iyo qof taqiya oo ilaahay ka baqaya aad uga baqaya laakiin daciif ah oo aan aqoonin taatikada dagaalka aan aqoonin sayiduna axmed ibn xambal wuxuu dhahay iskuma darno waxaa loo dhiibayaa qofka faasiqa ah oo taatikada dagaalka yaqaana sabab maxaa loogu dhiibaa u dhahay sababtoo ah awoodiisa iyo yani taatikadiisa iyo farsamooyinkiisu muslimiinta ayuu guul ugu soo hoynayaa ama faasiqnimadiisa wax naftiisa quseeya waa laakiin qofka daciifka ah oo taqwada oo taqiga ah wuxuu dhahay daciiftinimadiisu muslimiinta ayay ku soo laabanaysaa oo dagaalka haddii loo dhiibo waa la soo jebinayaa taqwadiisuna waa wax asiga u gaar oo asiga quseeya sidaas darteeda mas'uuliyad iyo xil marka loo dhiibayo qofkan karti iyo awood ma uu leeyahay ma ka bixi karaa hogaamiye ma yahay ayaa runtii aad iyo aad sifadaasuna waa sifadii ama tilmaantii saddexaad ee laga rabay qof kasta ee hogaamiye ama xil mas'uuliyad loo dhiibayo insha allahu tacaala waxaan aad iyo aad runtii dadka ula dardaarmaya ugu wacdinayaa in hadda kadib soomaalidu aan ogaano haddii aan nahay soomaali yani qofka aan u dhiibayno positionkan ma ku yahay ma ku habboon yahay haddii uusan ku habboonayna aan gebi ahaanba loo dhiibin halkaas ayaa xalqada kusoo gabagabaynayna aad iyo mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu